واكو قرابة يا مانتي واكو قرابة يا وحا أركتي أو عديسي وحارتي لدهيني نجرين أنا وحان كو شيغيا وحوي إدارات إدير لدهيني نجرين والصومالي dhibaatada Soomaaliya ku socoto arinta maanta ka socota laascaano barnaamijka magaciisa waxa la dhahaa DDR maanta hadaa soo ogaatay Puntland inaan la gooyo maahane wax kale ku hayn barina waxa soo ogaanaysaa dagaalka ina gashaan ya sabab u ahaa dhowr mar waan ka hadlay laakiin hadda kama hadlaayo markaad soo ogaatid ayaan rabaa warkaas inaan ku falanqeeyo انت كهرس حال عدس فهي مقاجي غارسيا يونايتد نيشن تك محاكو قرن دولكي بودلان waxa soo weeraray Somaliland ayay ku dacwoonayaan maamulka Puntland aniga hay aamin UN ka fiiri Somaliland waxay dhaheen dhulkii Somaliland waxa ku soo duulay dawladda Soomaaliya al-shabaab iyo waxa ku soo duulay Puntland United Nations ka taala labadaas dacwada taalo UN ka xafiiskiis haddaad ii keentid meel uu ku qoran yahay dhul bahanta ii kaatuma walaal xaalan ka bixinaya midda labaad waxa cadeysay qaxootigiina ku dhibantihiin وصح فيديوهاش waa daawateen maamooyinkii islaamihii dhulbahante oo soo qaxay diiwaanka qaxootiga xataa lama gelin dad kala isku rajiskareeyba meesh garabeeshin faarqabiil ilmaadeer toltol meesha naxariis ma taal Soomaaliya la dhahaa Soomaali naxariis ka guurti cid u naxariisanayso ma jiro waa ilaahay mahadiis hadaad mar afkaada ku qiratay سقران جيسدير إنه أها نن عوانا ديسا يبجج كيسي دكو كالا كحسناي وإلهي مهديس إناد فاهنتي هارتي معنى هذا إنا يأهد هالس كو دانيست هالس لقوي شالي وحان نهاي قرن ايديه جرتين قبيل ايا كذال قبيل عن نقطين هذا ما لقى يابا إنا كسو بحدان قبيلكي أو دهدان أنا قرن Soomaaliyan ka tirsannahay Somaliland waa qaran Soomaali iska la heshiiyo nabadda wax ka fiican ma laha hadda heshiis diidaan amisom Ethiopian Ingiriisi Mareykan ayaa u soo socda Somaliland oo saldhigyo ka sameysanayo sida Soomaaliya oo kale koonfurta oo kale ay u burbursantahay loo burburnaaya qorshaha ay ku socoto horta taas waa barnaamijka magaciisana DDR la dhahaa Professor Ken wuxuu yiri Soomaali awood leh ma rabno Soomaali dhulka nagula gortamayso ma u baahnin waxaan u baahanahay Soomaali annaga noo shaqeynayso baarlamaanka annaga keensano madaxweynaha annaga keensano ra'iisul wasaare annaga keensano waxaan u baahanahay saasoo kale maamul goboleedyadana inaan u keensano oday dhaqameedyadana aan u keensano waxaad aragtay intaas sano 5 sano la soo dhaafay odayaasha dhaqanka in la dilaayay odayaal dhaqan cusubna la keenay nin walba dhaqan cusub oo la keeno Mareykan beesha caalam UN iyo siyaasad dawlad inuu ku milmo maahane aw dhaqankii hore oo nabadda ka shaqeyn jiray ma jiro qorshe walba step ay u dageen dhaqanka in laga galo laga la wareego maanta dhaqankii oo dhan waa basaasin waxaan rabaa dhaqankaaga inaad ku laabatid dadka la shaqeeyaan iyo qaabka u shaqeeyaan inaad soo ogaatid waxa ku soo xigo alalaasaha ka socda gobolada yaa mas'uulka ah Professor Ken madaxii hore ee sirdoonka East Africa ahna ninka Soomaaliya u qaabilsan burburkeeda Mareykanka CIA-da wuxuu yiri waxaan rabnaa inaan abgaali habrigiir hubka ka dhigno muqdisho qabsano
oo qabsano ganacsiga iyo dhaqaalaha inaan kala dagaalano. Suuqa Bakaar imisoo gubtay, suuq Bacad imisoo gubtay. Somaliland markii lagu bilaabay maxaa la sameeyay? Suuqiya laga gubay. Aniga hay aaminin fiidowga soo daawo waa soo dhignay YouTube-ka soo dhigay Professor Kane dhaqaalaha iyo ganacsiga lagala dagaalamo dadkan. Odayaasha dhaqankana hal la qabsado. Maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeedna dad annagana taabacsan oo yes man ahana loo keeno. Hadda maxaa ku aragtay? Nin tabar leh ma ku aragtay Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabelle? yaa ku xigo Puntland, Somaliland iyo Jubaland. Professor Ken muxuu yiri? Fahima aqoon-yahanada tahay lii xaaji media gal YouTube-ka wasaaran yahay afkiisu ku leeyahay. Puntland waxay ku fiican tahay waa dad wada hadallo ogol waxa rabnay noo sameynaya. Marka nin raba inuu deegaankiisa badbaadsado ayaa deegaankaada gubay. Somalilandna waa meesha loo socdo. Adiga shalay waxa ahayd jaranjarta lagu kori lahaa. Hadda imisa tuulo ayaa ka bilaabatay. Garxaaji saanahay kanaanahay intaanahay reer Heblaanahay. So sabab ha u noqonina burbur labaad. Somaliland waa meesha kaliya maanta qarax uu ka jirin. Laakiin waxa dhacaysa maalin oo qarax iyo dil iyo dhac iyo boob iyo wax uu ka bilaawdo saacada ku sii socdo. dadka aad la xifaltamaysid, dadka garabka iyo walaalka ka dhiganaysid dhageyso. dadka isku diin ma nihin ha soo gelina dagaalkan hala dhaari ninkii garsooraha maxkamadda jooga baan dhaari dadka la soo doortay markaas wuxuu bilaabay inuu yiraahdo ma kugu wallaahiga ma kugu billaahiga laakiin uu kugu wallaahi ma kugu billaahi iskuma dhaariyo. anagu dastuur baan leenahay dhaar waa ku taala dastuurkaas dadka lagu dhaariyo. waxaan ku yiri war ku dhaari dastuurka dhaarta ku taala qaranka maanta xajka ilaahay samaystay garow ka jecel wallahi tuma horta madaxweynahoodii waa kaasaa waa ninka yiri taasoo ara inaan ku weydiiyo madaxweynahooda waa ninka yiri annaga wallahi billaah talaah kuma dhaarano dastuurka Puntland aan ku dhaaranaa wax ku qoran. dastuurka Puntland wax ku qoran adinka noo sheegay hay gaalka kalena muxuu dhahay gaalkii kalena wuxuu yiri saqaraan geystir ilaahay muxuu nagu nacay ilaahay wuxuu idinku nacay annaga ilaahay nama jecel yiri ilaahay wuxuu idinku nacay gaala u shaqaynta isku dirka bil aadanka isku dirka qabiilada iyo Soomaali ina war ka qaadaan iyo markuu Soomaali wada fiican u socdo inaad lugta ku dhigtaan ilaahay idinku nacay. ما تجعلني أرتي حتى إلهي ما تجعله محو إلهي نقول نعي مرك إلهي أسرع مع بورتين يا أيوب وقلبه ماذا كشكيني هذا كشكيدو أو ورقي سعودي هذا الله حكمنا إذ ما تجعلني أرتي حتى إلهي ما تجعله محو إلهي نقول نعي مرك إلهي أسرع مع بورتين يا أيوب وقلبه ماذا كشكيني هذا كشكيدو أو ورقي سعودي هذا الله حكمنا Soomaali waxaan uga baahannahay qabiil walba iyo deegaan walba dad aan ku shaqeynin qabyaalad iyo qabiil aan ku shaqeynin dad runta u sheegay dadkooda u baahannahay dad waxaan u baahannahay u istaago u kaco dalkaas badbaadadeeda. Fahima reality way soo aragtay way soo taabatay adinkana ku quus qaata dadkii barnaamijyada ku xirnaa dadkii live-kayga ku xirnaa shalay waa xasuusataan hadaladeedii maantayna Fahima afkeeda ku qaratay